hay'adda khayriga ee Khadija Foundation oo kamid ah hay'adaha khayriga ee ka howlgala gudaha dalka ayaa waxay hay'adani ay muddooyinkii ugu dambeeyay ka waday gudaha dalka gurmad ay kaga qayb qaadanayso xaaladaha abaaraha daran ee ka jira gudaha dalka. Hay'addan Khadija Foundation ayaa waxay gurmad raashin qaybina ka samaysay deegaano tiro badan oo hoos yimaada gobolka Togdheer. Sidoo kalena Khadija Foundation ayaa waxay gacanta ku haysaa caruur agoon oo kor u dhaafay 7,000 waxaana dugsiga ku yaala magaalada oo dhigtaan caruurtaas agoonta ay ka qaybiyeen deeq agab waxbarasho iyo sidoo kale cuntada dugsigaas oo ay bilaash uga dhigeen hay'addan Khadija Foundation. Marwarooda Cali Fidhan oo gudoomiyaha hay'addan khayriga ee Khadija Foundation ayaa waxay faahfaahin ka bixisay waxqabadkooda waxaana ay tiri بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنيقو روضة علي فدين ليداهدو oo ah gudoomiyaha hay'adda khayriga ah ee Khadija Foundation oo maktabkeedu asaasigu yahay magaalada Hargeysa maktabkeeda labaadna Burco yahay hay'addan khayrigi waxay ka shaqeysaa arrimaha agoomaha iyo danyarta iyo taakuloontooda hay'addan khayriga shaqadeeda waxay bilowday 2012 ay dadka tabaalaysan wax tari jirtay imakana ay sii ballaarato ay hoos yimaadaan tiro ku dhan 7,000 oo agoomood iyo danyar 1,500 oo reer aanu xireynay intii imaka laga qabilayna ay tahay taqriiban 150 reer aanu weli wadno iyo maxay tahay caruurta maxay tahay xiskoodu dhameyn aanu imaka wadnay yaryar hay'adda Khadija waxay la shaqeysaa laanqeyrta cas ee Imaaraadka ay ku xiran tahay alxamdulillah rabbil caalamiin hay'adda Khadija waxay sameysay iskuulo dhowr iskuul baa jira iskuulka iyaga noogu weyn waa iskuulka Sheekh Saayid ee ku yaala magaalada Burco oo aad iyo aad maxay tahay iskuulkaas والله u wanaagsan yahay tacabkaygana ooga muuqdo iskuulka waxa dhigta arday ku sugay ilaa imaka 300 iyo dheeraad ayaa dhigta hay'ad Khadija bimaana ay tahay hay'ad khayriya oo markastaba dadkeeda iyo dalkeeda dareensan waxaanu imaka ka shaqeynaa ayaamahan gurmadkan maxay haytay abaaraha wixii dalka la soo gudbanaadaba aanu markastaba isnaana maxay haytay idinkuna ka qayb qaata waxaanu bilownay 2016 bishii saddexaad baanu gurmadkan bilownay imakana waatan de xaaladii si adkaatay ku reer baan u keenay maxay raashin ka kooban daqiiq bariis sonkor maxay haytay caano timir aanu ka soo rarnay Imaaraadka iyo saliid intaas anaka noo ah maxay haytay farxad markaanu aragno qof walaalkaas markaad kaalmaysidu ku farxo waxaad u keentay alxamdulillah rabbil caalamiin waxay ku siinaysaa tashkiic markastaba inaad sii wadid fariiq kaamil baan aniga qudhameeyay mid kastaba isagu xitaa jeebkiisa ka wada bixiyaan qof kastaba isagu uu ku soo darsada waxaan ururinaynay dawladnoomay soo dhiibin anaka soo ururinay ka Khadija Foundation fariiqeedo dhan markii horena waxaanu ka ururinay magaalada dhexdeeda masaajidada baanu ka sheegnay in walaali dadku baahan yihiin dhar baanu ururinay maxay haytay raashin baanu ururinay waanu geynay ma sha Allah meel badan baanu geynay gobolka Togdheer imikana waxaanu ka shaqeynay Ali Ciise maxay haytay Ali Faarax Duruqsi Bisiqa far badan baan ka soo shaqeynay taqriiban ilaa 7 tuulan ka soo shaqeynay dadku aad bay u tabaalaysan yihiin u dhibaataysan yihiin biyo la'aan baa jirta tuulo kasta aanu u geynay raashinka biyana waanu u geynay alxamdulillah rabbil caalamiin tuulanka qaar baa ay dhishan 15 cisho maanu cabin biyo dadka markaan sii soconay dadka waxaanu aragnay dadka wadada dhinaceeda bay fadhiyeen ay sugayeen 6 subaxnimo reer baan ku marnay iyadoo gabadhi jirkaana la fadhido 6 subaxnimo ay biyo raadinaysay dawladii markaan soo dhameynay raashin qaybiskii waxaan ku dambeynay iskuulkayga Sheekh Saayid waxaan u sameynay alxamdulillah rabbil caalamiin raashinkii baan bilaash uga dhignay raashinkii sanadka cuni lahaayeen ayaa bilaash u ah alxamdulillah rabbil caalamiin ciyaalku halkaas ay ka qadeynayaan alxamdulillah oo bilaash u ah alxamdulillah rabbil caalamiin taasna farxad aad u fara badan bay annagana noo ahayd iyagana u ahayd waxa kale aan u sameynay maxay tahay mashruuc shandal madrasiya oo ah maxay haytay ma sha Allah ay nagu deeqday hay'adda khayriga ah ee maxay haytay laanqeyrta cas ee Imaaraadka ay ugu soo deeqday caruurta shandadii iyo bugaagtii iyo qalimadii reer Soomaaliland waxaan idin sheegaya iyo wixii islaamka aba u sheegaya maanta xaaladu aad bay u xun tahay dadkeena aad bay u liitaan dad masaakiina weyn oo adigi ka baxay kii 900 aha maanta laba amba saddex ba ag taagan dadkii waniyad jabsayniya jabahaya maxay haytay gaaja haysa baahi baa haysa waxaan ka codsanayaa dadka islaamka waxaan ka codsanayaa dadkeena Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa dadkeena reer Somaliland inay dadkan maanta u taakuleeyaan dadkan inay caawiyaan ay u soo jeestaan ikafi $1 haduu qof kasta maanta diro gudiga abaaraha u diro ma garanaysa wallahi dad badan bay wax ka tari lahayd 4 milyan bar hadaynu nahay 4 milyan maalintii quraadii halka $1 la diro 4 milyan la diro 4 milyan dadkeena dhan bay ka feyn lahayd tan shay dawladda waxaan ka codsanayaa maxay gobolada yaryar tuulooyinka loo soo jeesto dhibaatada tuulooyinka taala waxa weeyaan jahal يجاچو يبي الآن
jahal shabaab xoogii dalka halkaas ku baabaya shabaab iska taagtaagan wax allaali waxay qabtaan jiray arigina ka baxay tuulooyinkii wada taagan aakhira waa layna weydiinayaa kulli raaci mas'uul can raaciyatihi wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh isku sawad xoriya maha markii ugu horeysay hay'adda khayriga ee Khadija Foundation ay ka qayb qaadato xaaladdan abaareed ee ka jirta gudaha dal wa Khalid Bakayle fogaana rag xorta Star TV Burco.